الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إخواني في الله كسر دوادة برنامج كأني يحسوسي آيات إنه قبل حيي مساجد كمروكو بيج كان مساجد كمروكو مجرد بريسبن حلقة وحلقة لبي الطبنات إن شاء الله تعالى وحينو ما أنت كسر قادي دورنا قصة كسر سورة العصر. إلهي سبحانه وتعالى في الله هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. سورة إن شاء الله تعالى ونشرح دونا فوائد إنه كهلينه لكن ما أنت وحي لجوجة لبو أخيار ولا لا عثمان يو عبد القادر يا عثمان أور ملبن نقص بقضي مجال ملبن لبدا ولاalaha waxay maanta noo wadaan khaasatan Usmaan qisa cajiib oo wiigi dhaweyd dhacday oo aynu kaga faa'iidi karno suuratul Asr. insha Allah ta'ala waxaan ku wareejinayaa walaal Usmaan in uu balinoo sharaxo qisadaas qaabka u dhacday sida ahayd Usmaan insha Allah ta'ala ku soo dhawow qisadaas wiigi dhaweyd dhacday iyo qaabka u dhacday. jazakallahu khairan sheekh Daawud aad baad mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa fursadda aad noo siisay in aan ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaagno iyo qof waliba ay gaari doonta fariintan run ahaantii aad ka qaaliga ah walaalayaal run ahaantii arinkani ama qisadani waa qiso aan u arko qofka muslimka ahi in uu ma arkaysa ku ziyaadsan doono iimaankiisa qofka aan muslimka ahayna waxay ila tahay hadii qisadani si sax ah loo gaarsiiyo inay sabab u noqon karto inuu diinta islaamka u soo galo. qisadani waa qiso cajiib ah oo run ahaantii qisada igu yaabka badnayd igu xiisaha badnayd igu rajada badnayd inta aan noolaa aan ma arkaysa aan la kulmay. sheekh Daawud waxa dhacday 25 bisha la soo dhaafay ee February hadaan ka soo baxnay waa isbuucii hore maalinta Monday ahayd oo isla sanadkan 2019 waa muddo hadda dhowr maalin laga joogo ayaa waxa ay soo wacno shaqo ku jira nin saaxiibkaya oo wiil walaal waxa ila soo hadashay gabar oo baadiriyad ah oo ka soo jeeda dalkan South Sudan. South Sudan arin mucjiso ay ii sheegtay markii waxaan rabaa gabadhaas inaad la hadashid kaalay buu igu dhahay masaajidka Amsa ee magaalada Melbourne ma arkaysa si aad qisada uga dhageysatid gabadha waxay rabtaa talo in laga siiyo arinta ay la kulantay. صح waan soo baxay Melbourne bay ahayd masaajidkii aan tagay labadii duhurnimo balansanay gabadhii way mashquushay xilliga marka telefoon baan ma arkaysa aan kala hadlay Allahu musta'an gabadhii iyada ahayd Ilaahay khayraasiya waan wareystay waxaan ku yiri maxaad la kulantay subhanallah arin waxay ii sheegtay cajiiba gabadhii waxay igu tiri muddo 5 bilood ayaa habeen walba iyo maalin walba waxa dhacda qof magaciisa igu sheegay Jaabir al-Ahmed ayaa riyada igu imaada wila hadla marna aayado quraan ayuu igu dul aqriyaa bay tiri waa iyadoo jiifta hurdaysa صح ayadii quraanka ana hurdaya markii lagu bilaabo aan soo kaco oo indhaha aan kala qaado ama intaan indhaha kala qaadin ka hor waan soo kacay waan soo jeedaa laakiin sariirtiidan saaranahay still waan maqlayaa ayadii quraanka ninka igu dul aqrinayo gabadha marka waa Christian waa baadiriyad kaniisada ayay ma arkaysaa kutub ka bixisa ay ka wacdisaa Bible ka sharaxda professional weeyaan waliba waa qof soo baratay oo diploma ku soo qaadatay baadirnimada family ka ay ka soo jeedana waa family sidaas oo kale diinta Christian ku adag marka maanta axada program bay lahayd maanta axada oo taariikhdu hadda ay tahay 3 bisha March program bay kaniisada ku lahayd inay ka hadasho oo iyada inay ka hadasho ay rangareysa ay ahayd صح marka waxay dhahday muddo 5 bilood ah quraankii waa la bilaabayaa waan soo kacay waan soo jeedaa indhahayga way xiran yihiin waan maqlayaa ciyaalkayga markay hadal bilaabaan quraankii waa la joojin markaan musqusha aado waa la joojin subhanallah
aayadaha marka ay ii sheegtay lagu aqriyay gabadha ay waliba ay xifdisan tahay waan idin la wadaagayaa walaalahaygan waan la wadaagayaa haduu ilaahay idmo marka mar waliba waxay moodaa ama qof guriga ku jira inuu cajalad quraan daaray maha waxay riya ay ku aragtay kaliya quraankii bay maqlaysaa say gabadha ii sheegtay iyadoo soo jeeda waxaad ka dareemaysaa aayadaha ay sheegtay in lagu dul aqriyaa cajiib ah marka way baxdaa dariskay u tagtaa waxay dhahdaa qof muslima miyaa jira oo ereyadan degan oo ma arkaysa quraan ka shiday guriyaha dariska ah gaaladii waxay dhahaan may meeshan qof muslim lama degna marka gabadhii waxay ma arka arinta sababtay guriga degnaa jirtay inay ka guurto because yes waxay u aragtaa iyada say ii sheegtay masiibo iyada ku soo wajahan inay tahay waxay tiri waxa laga yaabaa inaan soo waalan rabo arina igu soo wajahan guriga waxay ugu jira marka gurigii way ka qaxday because qof u sharxana wixii may arag xaafad kale degtay marka arintaas ay haysatay igu tiri gabadhii suuradaha lagu aqriyo marka ayay ii sheegtay waxa kamid ah suurada lagu aqriyay oo wadaadka uu ku aqriyay aayada ugu horeysay suurada ugu horeysay waxay suurada al-asr waxay ahayd wal asr inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mar waliba uu yimaado suuratul asr buu igu dul aqrin baytir waan garan waayay anigi marka haddana maalin kale ii soo laabtaa habeen kale ii soo laabtaa suuratu yaasiin buu igu dul aqrin subhanallah yaasiin suuratu yaasiin buu igu dul aqriyaa ha waa isla ninkii magaciisa ay ku sheegtay Jaabir al-Ahmad suuratu yaasiin wal quraan al-hakiim aayadii buu sii wadayaa waan garan waayay markii quraanku igu bilaabto waan gariirayaa bay dhahday waan soo kacaa haddaan soo kaca xitaa wali quraankii waa shiday guriga ka daaraya ciyaalku markay hadal bilaabaan waa la joojinaya haddaan musqusha aad waa la joojinaya haddaan soo laabtana quraankii waa daaran yahay inta waxa si dheer bay ugu dhahday shanta salaadood adinka marka la gaaro waa la adima adin bay maqlaysaa waxay dhahay haddaan guriga joogo haddaan kaniisada aan joogo 10 aan bixinayo haddaan suuqa joogo adinka salaada xilligeeda markii la gaaro waa la adima adin caadi ah oo min bidaaya ilaa nihaaya la dhameystirayo waxa igu darneed bay tir maalmaha kamid ah anoo kaniisada ku jira 10 bixinaya kaniisadii ba subhanallah ayaa adinka ka dhawaaqay waan gariiray hadalkii waa sii wadan waayay dadkii kaniisada ku jira ay ugu dhamaad hadashid maxaa la aamusan tahay markaas ay culeys ay haystay suuga waan la yaabay bay tir marka ana Allahu akbar mar walba waa google gareeyaa Muslim prayer times ban fiiriyaa bay dhahday waxa ii soo baxda adinka xilliga maqlay inay xilli salaada oo adinka muslimiinta ay adimaan waxyaaba cajiibka carabiga marka ayada markii aadaanka iyo suuradaha iyo luqada carabiga taqaana ma sha Allah jazakallahu khayr su'aal fiican gabadha waa gabar Suudaaniyada luqada carabiga way taqaanaa South Sudan weeyaan Khartoum ay waliba ku soo dhigatay high schoolka marka luqada carabiga si fiican bay u taqaanaa bible-ka isagoo carabiga haysataa way dhigtaa marka aadinkii way garanaysaa subhanallah marka waxay dhahday anoo kaniisada ku jira ayuu aadinkiisa ay ugu dhawaaqayaan mar waliba meel waliba aan joogo waxyaaba cajiibka marka ii sheegto waxa kamid ah salaada macna xilliga waa bariga markii la gaaro laba jeer la adimaa bitir wala fiirso subhi oo kala duwan waa labada adin oo fajrka subhanallah hadii waa adinka dambe salaadaha kale afar adin kaliyaan maqlaay tiri marka inta waxa sii dheer oo aad iga yaabisay gabadha ay ii sheegtay waxa dhacda bay dhahday wadaadkii inuu ii imaado oo igu dhaho af carabi uu sheegayaa wuxuu leeyahay shahaadateynka ku dhabaaq ha ka xarimin dadka muslimiinta ah in ay kula dabaaldegaan ay kula farxaan ee kaalay oo nagu soo biir waqra al-fatiha macna اقرأ الفاتحة معنا صح gabadhii waxay may garanayeen marka shahaadateynka iyo wadaniga oo ka hadlayo iyo wixii ma fahmayso oo shahaadateynka la rabo in lagu dhawaaqo iyo marka nagu soo biirtaan iyo way fahmi laadahay shan bilood bay ku socdaan ay guriga kaga soo guurtay guri kale soo degtay wali quraankii waa socdaa adinkiina waa socdaa ninkii wuu soo laabanaya wuxuu leeyahay kaalay oo nagu soo biir ummadda muslimiinta ha kula dabaal degaano
markii waxay tiri arintii waxay igu noqotay arin fajicisa waxaan u tagay bay tiri marka arintii ugu yaab badnay waxaan u tagay bay tiri baadariga aan kaniisada 10 kan ka wada bixino waxaan ku dhahay bay dhahday urni arintaas ay haysata oo mar waliba waa la imaada quraan baa leegu aqriya suuratul asr wal asr insan la fi qusr yaasin quraan al hakim adin baan maqla nagu soo bir baa la dhahaya marka aniga xaalkayga ma garanayo waxba igu soo wajah inaan waalan doona laga yaaba arintani ii fasir baan ku yiri bay tiri ninkii baadariga ahaa marka wuxuu ku dhahay waxa ku haya waa waswaas fidnaana kugu soo socota buu yiri ma arkaysaa intaad ka jeesid waxa is ilaawsiisid maybe waxa laga yaabaa inaad cidla dareemaysid familkaaga aad u xistay aan lacag ku aruurino aan ku dirno Suudaan familkaaga soo booqo holiday soo qaado wuxuu ugu daray marka arinkani ka qari muslimiinta ha u sheegin cid kalena hal la wadaagin arkan gaalada xitaa hal la wadaagin adiga kugu ekaada lacag baan ku aruurinayna holidayda iska aad gabadha waxay ugu tiri ninka baadiriga waxaan ku yiri arinka i haya ma ahan ma arkaysa wax u baahan safar ma xalin karo there is something going on around me better marka waxba igu soo socday tir aniga waxba igu soo maqan marka waxa jirkeyga ka qaylinaya ama arintani waxaan rabaa in la sharxan u baahnaa better adiga marka telefoon ay marka halkaas kugu weydiinaysaa su'aalahaas aniga telefoon bay igu sharxaysaa markaas waxaan ku yiri war aan ku siiyay hadaba waxaan ku yiri waali iyo junuun kuuma soo socdo waxa aad maqashay waa quraan jin inuu ku imaado ana shaydaan inuu ku imaado quraan kugu aqrin maayo suuradaha lagu aqriyay laftooda macna gaari xambaarsan yihiin baan ku yiri kitaabka ilaahay haddaan kaaga bilaabo suuratul asr إلهي وحول لي هاي والعصر إن الإنسان لفي خسر يا إلهي دهري مع عصرك كل نارنا يا ربي عز وجل وحول لي دتك بين آدمك أو إذن خسارة كسجيهين خسارة وحا كبد بهذه كلية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هو إلهي الرمي نبي محمد النبي النمذي سير الرمي أو عمل ونكسرنا كدري حق يصبر كان ما أركضتك قدر دارمين dadka kaliya ayaa ka badbaadaya khasaarada bani'aadamka ay ku sugan buu Ilaahay leeyahay suuradani Imaam Shaafici oo aimada muslimiinta kamida wuxuu dhahay hadii kaligeed ay soo degileed way ku filnaan lahayd dadka marka suurad muhiimad gaar ah xambaarsan waaye adiga ayaa waxa lagu tilmaamayaa baan ku yiri in aad ka soo baxdo wadada asaaran tahay oo iimaan oo ah Ilaahay Nabi Muhammad rumaysid عمل لا أتكون درتد با لغو دردار ميا سياد وبدبادل وحنكون بادر إن ما هذا محد سمين جرتين وحيقول تري ولي خمر معبن مزنيسن ضد مدعن ضد معاين إلهي مروا اللي بالجنة وضد الصحنا ويدين جري وتري هذا وحنكون إلهي قلب جاو آخرستي وضد الصحنايد أيام معركة إلهي ونكا كوكسو ديبا كوير صح مركا gabadhii warkii waa degay way qaadatay waxaan ku suuratu yaasiin aayadaha ugu horeysa ilaahay azza wa jalla wuxuu kugu tilmaamayaa nabi muhammad walaal fiirso ilaa adoo kristan baad ahayd nabi ciise waad rumaysantaa laakiin nabi muhammad rumaysneed ilaahay wuxuu ku tusayaa nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam inuu rusushii la soo diray inuu kamid yahay sida ciise aad u rumaysay ina nabi muhammad rumayso ilaahay kugu tilmaamayaa كو قرآن كان إنه سن أهين كتاب نبي محمد جاب كيسة كلا صباحية إنه يهي إلهي كتاب وسود الجيي أيا سورة ياسين أي تلمام يسابان كويرة تنا وحي كبر يسا إن النبي محمد رميسيد كتاب كإلهينا إن تقالت بكبر يسابان كويرة هذا أنصر دا دعمرك شهادتين كل باق شهادتين كل باق شهادتين كهرك ورتما فهمتي بان كويرة ما يقول هذا مركز سواء كل شهادتين ك وإن أتقرتي إله عز وجل إنه كلجي أو يحي إله كلا أسنجرن ولا لا عابده نبي محمد عليه الصلاة والسلامنا إنه يها رسول إله صادري شهادتين كوالله وضع سقيبان كل إلهي إنه نبي محمد لا وضع إن أتقرتي هي شهادتين كلا رحاه مركا
message-kaas waa very clear baan ku yiri marka kan wuxuu si toos ku weydiinayaa in aad diinta islaamka aad soo gashid oo aad ku dhaqantid waa risaalo ilaahay adigu kuu soo diray waayaan ku yiri waana raxmad kuu soo socota ee waali ma ahan baan ku yiri adinka marka oo 5 jeer lagu adimayo hada waa 5 salaad waa ad kulay baan soo ilaahay ii waafajiyay baan ugu sharxay waxaan ku yiri 5 salaadood ayaa xilligooda lagu adimayaa waayo waxa laga rabaa marka ilaahay nabi maxamed aan rumaysid kadib aad muslim noqotid inaad 5 salaadoodna inaad tukatid baa lagu amrayaa baan ku yiri marka waxaan ku yiri kani waa chance ku soo maray oo dadku inta badan aysan helin dadka qaar hidaaya oo dadka xaqooda ka ahaatay ayay helaan laakiin adiga hidaaya min Allah baad heshay qof baa ilaahay ku soo diray waxay ku wareersaneed inay raadiso Jaabir al-Ahmad waxay ugu tiri wadanka uu joogo ee tilmaaninka ee Google garay aan raadiyinka waxaan rabaa inaan ninka aan raadiyaan rabaa waxaan ku yiri ha raadin baan ku yiri Jaabir al-Ahmad waxaan ku yiri ilaahay baa qofkan ku soo diray malag malaa'ikta ilaahay kamid ah inuu laga yaabaa waa qof kale oo ilaahay ku soo diray laga yaabaa jin muslim ilaahay ku soo diray laga yaabaa aduu waa qof ilaahay ku soo diray ha ku wareerin baan ku yiri muhiimadda waxa weeye risaalada islaamka inaad qaadatid oo aad ku dhaqantid ayaa laga rabaa gabadhii run ahaantii waxa igu tiri waa ii duceysay horta saacad iyo 15 daqiiqo telefoon ku wada hadlayna markaa waa ii duceysay waxa igu tiri shambil culayskii saarnaa ayaa iga dagay bay tiri markaad ila hadashay alxamdulillah ilaahay baa mahadaas kale ilaahay baa anna i waafajiyay run ahaantii cilmi aqoon aan leeyahay ahayn marka waxay tiri inaan soo waalan rabo ama arin inay ugu soo socoto anigu aan ka baqay bay tiri laakiin hadda culayskii waa iga dagay waxaana sameeynaya bay tiri sida uu ilaahay rabo inaan sameeynaya bay tiri hadaba waxaan ku yiri ilaahay wuxuu rabo inaan soo muslimteen ni waxay tiri waan soo muslimi diinta islaamka waan qaadanaya bay tiri khalaas waa baadariyad qofta diinta islaamka waan qaadanaya bay dhahday laakiin reerkii dhan gaalnimada way sii dhaafeen buu waa rag mitidiina diinta gaalada ku adag way la dagaalayaan waa baadariyiin anna waxaan ahay bay tiri baadariyad oo kaniisada intaasoo ummad ay ku xiran yihiin axada soo socota 10 baan ku leeyahay kaniisada waxyaabaha kale aan ilaa waxa kamid ah wadamada Yurub wadamo badan bay martay ay dacwo u martay ilaa ay Qudus bay tagtay gabadhaas iyadoo kristaanka si Qudus meelaha oo wanaagsan loo soo tuso maadaama ay baadada iyadoo kaniista markaysa iyadoo kristaanka dan faafinaysa markaysa marka waxay tiri qof sahlan ma ahi Facebook-ga hadaa gashay tiri waligayba waxaan share gareyn jiray tiri ma arkaysa Christianity aan share gareyn jiray hadaa anigu muslim aan noqdo dagaal badan baa qabsan doon dhinac walba niyo maxaan sameeyaa bay tiri sida kaana inay arintaan ay ka walwalsan tahay marka waxaan ku dhageyso ilaahay ninka ku imaaday adiga ayuu ku soo diray baan ku yiri fariintaana special message bay adiga kugu socotay nin kale qof kaniisad fadhiyay waalid ehel kuma socon baan ku yiri diintan waa taqaan baan ku yiri baadiriyad baa tahay qabriga hadaad gashid kaliga aad gali doontaa xisaabtii cadaabtii wax waliba alla waa ku kaliga marka waxaan ku yiri marka ugu horeysa naftaada badbaadi baan ku yiri dadka ha ka walwalin isoo xasuusi marka aayada ugu dambeysay gabadha lagu soo dajiyay aan ku sheegi doonaa astaghfar lagu soo dajiyay maahane riyada loogu keenay ma arkaysa loogu akhriyay markaan saas dhahay waxay ugu tiri khalaas I don't care others waxay tiri aniga naftayda iyo aakhiradeeda ka fikiraya ismaano waan soo muslimi bay ugu tiri marka maxaa xal ah waxaan ku yiri 3 o'clock ahead ma saan u hadlayna 2 baa shaqada bilawnay 3 bay gaadhay hadda waa 3 baan ku yiri caruurtaada iskuul ka soo qaado oo cuntada si oo ma arkaysa tartiida ha degdegin 6 o'clock hadaad waqti haysid nagu kaalay baan ku yiri masaajidka North Melbourne amsa okay bay ugu tiri waxaan sii balansaday marka wadaadan sii balansaday sheekh magan ilaa khayraasiyo sheekh aadan saalix sheekh yaxya muadinka masaajidka iyo wadaad kale sheekh maxamed la dhahayo iyo aniga shanteeni ayaa marka alxamdulillah ilaahay uu noo calfay gabadha inaan la fariisano marka sigis intaysan noo iman ka hor masaajidkan ka tagi maqaaxidan qadar ka doontay anoo marka qadadii u fadhiya bay waxay soo wacday 3 baan kala tagnay waxay soo wacday 3:38 minutes bay soo wacday meelahaas aduu 4 intaan la gaarin markaas waxay u turay cismaan hadda intaan kala tagnay anoo gaarigaygii wadada saaran ayaa hadana mar kale quraankii ka dhax dhawaaqay bay igu tiri gaarigayga subhanallah
waan gariiray markii quraanka ma arkaysa la akhriyo waan gariiraa bitire cabsiya ay gashaa gaarigii waxay tiri wadadan istaajiyay hazard light kan shitay tiri sida qof ma arkaysa gaariga ka burogaro oo kale baawartii dhan way iga leexatay arintaas ay qabsatay bay u dhahday markaas waxaan ku iri ma xasuusan kartaa quraanka haabay ugu tiri marka waxa leegu aqriibay iqra bismi rabbika alladhi khalaq ayadiyaan u wadi marka u dhameystay marka aniga ma ay suuradaas yas'alama al-insana ma lam ya'lam way ku jirtay bay ugu tiri hadaba waxaan ku iri ayadaasna waxay ku leedahay the bible kana waa taqaanaaye kitaabka quraankana baray ku leedahay ku iri sad umada u gaarsiisid marka alxamdulillah ilaahay waa i waafajiyay marka gabadhii 6 pm bay noo timi wadaadadii bay u sharaxday wadaadadii markay u sharaxday arintii u sharax baan ku yiri wadaadada waa kuwana wadaadadii bay arintii sidii ugu sharaxday way oysay markii wadaadada sharaxaad ay u bilaabeen iska oysay gabadhii ma sha Allah raxmadii ilaahay ku soo degtay ilaahay wuxuu ma arkaysaa marka nawaafajiyay gabadhii baadariyada ahayd intaas oo sano kaniisada ma arkaysaa wax ka aqrin jirtay annagoon de gurigeeda ugu tagin ilaahay ma arkaysaa qofka u soo diray annagana alxamdulillah sabab nooga dhigay sidii baan halkii aan tawxiidka ugu qaban gabadhii ma sha Allah diinta islaamka soo gashay ay naga codsatay magaca in laga bedelo Susan baa la dhahay gabadha from Susan waxay noqotay Zainab bay noqotay ma sha Allah marka alxamdulillah waxaan sameeynay in kutub quraan baan siinay kitaab quraan oo keligii aweyn kitaab quraan ah iyo tafsiir oo carabi ah maadaama carabi ay taqaano hadana kitaab quraan ah tafsiir english aan siinay kitaab kale marka waxaan u helnay oo salaada ka sheekeynaya oo laga bilaabo min at-tahara ila at-taslim kitaabkan oo english carabi ku qoran way qaadatay marka masaajidkan tusnay alxamdulillah way baxday maalintii kale isoo wacday waxay tiri maqribka marka idinka tagay hada around 8 something waa magaalada Melbourne adinkaas aan marinay ila 4 am bitiri kitaabkii yara salaada ka sheekeynaad isiisan aqrinay tiri waan dhameeyay tiri kitaabkii min bidaaya ila nihaaya suuratu faatixana waan ka xifdiyay iga dhageysay bay ugu tiri alxamdulillah suuratu faatixa ka dhageystay way akhrisay gabadhii ma sha Allah gabadhii ma sha Allah gabdha kale muslimiina u tagay ilaa aad waa loo tagaa duruus baa la siiyaa waa la soo dhaweeyaa ma arkaysa muallafatul qulub baa lagu wadaa alxamdulillah waxyaabo marka cajiibka aan ku soo gabagabeynay marka maalin dhaxdaas had intay saa u soo muslintay kadib ayaa hadana mar kale quraan loo akhriyay ana marka khayr Allah imaam Nasr Muuse la dhahayo oo hooyooyinka dacwada ka wada magaalada Melbourne kamid ah u dirnayada iyo teamkeeda ay u sheegaysaa marka anna markii dambe aan la hadli doonay ii sheegay xaqiijin doontaa waxay tiri aayad baa hadana lagu akhriyay aayadu maxay ahayd baan ku yiri aayadu waxay ahayd bay tiri in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhذلكم faman alladhi yansurukum min ba'di hadii uu ilaahay azza wa jalla uu idin gargaaro cid idinka guul dareysanaysaa idinka guuleysanaysaa ma jirto aayadaas lagu akhriyay hadaba indhageysan ku yiri aayada waxay ku tilmaamaysaa baan ku yiri maadaama aad soo muslintay inuu ilaahay ku gargaaray horta sax cid waliba oo kugula dagaashay islaamnimadaada sax way bajiri doontaaye ilaahay baa ku gargaaray kaama qaalib noqon doonaan baan ku yiri ee adiga ayaa waxa laga rabaa inaad sabirtid baan ku yiri gabadhii alxamdulillah aad bay u faraxday ilaa yawmina hada ما شاء الله وجبر دين تحسين إني برته ما أنت إذا أنا أحد أنا ويكباقته الحمد لله برنامج كي كنيسة درس كنيسة يكون هاد ويكباقته ما شاء الله جزاكم الله خير قصص أسوي على شيء وقصة لوعي فقط حقيقة إلهي سبحانه وتعالى قفك هنول لدونينا عد باديين كرتمان قفك إلهي باديين عد هنوني كرتمان إن شاء الله تعالى عبد القادر رحمه قدر يسار ما قصة ما شاء الله هو سيداس ولالك إنه قصو قد بني وإنا كو عبر قادرنا إن شاء الله ما ركتي أنك أنا إيمانك إسلام نماذا إلهي النسي إلهي نوغو محضرنا معناها وحيالها عجيب كأه وإلهي نوغو قرقارا وحيتا إنا داد إسلامنا إن معاذا أقوين وآن هيساننا واتاس marka insha Allah dadka kalena oo malaaleena aan ku dadaalno sidii Ilaahay maaragtay aan diinta u gaarsiileen anagana Ilaahay maaragtay ugu shukrino marka wajazaa gabadha waxay diyaar u tahay marka
horta walaalaha clipkan daawan doona waxaan ka codsanaynaa inay sii gudbiyaan dadka ay la wadaagaan qofkii luqadaha kale ku fiicanna qof walba luqadu ku tarjumi karo inuu arinka ku tarjumo si dadka kale oo gaalada ahna ay cibro ugu noqoto muslimiinta laftooda iimaankooda ugu xoogaysta ma sha Allah gabadha laakiin waxay diyaar u tahay insha Allah markay diinta islaamka ay barato si fiican ay u barato in ay kitaab book ka qorto arintan qisada ay ku soo muslimta insha Allah waxaan u rajaynaynaa inay daaciyad noqoto waxaan ka codsanaa qof waliba clipkan daawada inuu gabadha u duceeyo inuu ilaahay diinta ku sugo insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu baryay inuu diinta ku sugo ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ku anfaco khaasatan wadamadan gaalada ah ee ku noolnahay ikhwaan intaasaan idinkaga tagnay insha Allah ta'ala la socod xalaqaadkayga dambe oo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh